xaflad lagu maamuusayo xulka isboortiga ee gobolka Sool ee ka qaybgalay ciyaaraha Somaliland. Munaasabad lagu maamuusayo lagu qabtay hoolka dowladda hoose ee degmada Laascaanood waxaa ka soo qaybgalay maayarka degmada, gudoomiyaha golaha deegaanada, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, mas'uuliyiin wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool iyo mas'uuliyiin kale. Halkaas waxaa ka hadlay maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Tarawale. waxa hadaladiisa kamid ah sida tan: xafladda ka soo qayb gashay dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaan xafladdan maanta halkaan ku hayno waxaan ugu talagalnay inaynu ku dhiirigelino xulkii ciyaartooyga gobolka Sool ee dhawaan ka qayb qaatay tartankii ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Somaliland ee ku soo gabagaboobay magaalada Hargeysa. marka koowaad waxaan leeyahay dhalinyaro kubaddu waa cadaan iyo madow. tartanka waxa loo qabtay in cuduun ay ku guulaysato cidii calafkeeda baa qaaday, laakiin muxuu ahaa waa cadaan iyo madow. waxaan kula tartaarmayaa idayna niyad jabin oo niyadiina aad kor u sii qaataan. hadduu qofku mar kufo mar labaad kama kufayo adduunyada iska saasa. waxaan rajeynaynaa tartamada badan inaynu soo qaadi doono. waxaan leeyahay dad badan oo ciyaartooyga oo deegaanka ku nool ciyaartooyga dhalin arkayay adduunka meel aan dhalin lahayni ma jirto. waxa jira kuwo wareegii koowaad ku soo gool baan dhalin ba wax gool aan dhalin wax xaflado waaweyn loo qabanaya arkaysiin. marka waxaan leeyahay saamino oo muxuu ahaa magaaladeena iyo gobolkeena aynu aamino kuwa waxbaan ahayn baa wax loo qabanayo lahaa muxuu ahaa gool baa shabaqa bay taabsin baa laga yaabaa. marka waxaan leeyahay isku tashano waa dhiirigelinaa garabkiina maayarka degmada Laascaanood iyo golihiisa deegaanka, xildhibaanada golaha deegaanka joogta xulka isboortiga gobolka Sool, marti sharafta kale ka soo qayb gashay dhammaantood waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xalfadan oo maayarka u qabtay xulka gobolka Sool ee dhiirigelinta ma aha maayarka markii ugu horeysay oo xalfad tan oo kale ama dhiirigelin xulka gobolka oo garab istaago. maayarku wuxuu ahaa ilaa iyo maalintii xulka gobolka la xulayay ninkii saacad walba garab taagnaa xulka gobolka intii oo ka soo baxay badweyntii ciyaaraha ee ka socotay Somaliland koobkii. mar walba uu garab taagnaa ilaa Hargeysa ilaa iyo maalintii almitada la bilaabay ilaa iyo maanta oo koobkii soo gabagaboobay. waana garab istaaga oo xaq u lahaa oo xulkiisii garab taagnaa maayarku. waa ku ammaanaynaa maayarka garab istaaga oo gobolka garab istaagay. waxaana fariin u diraynaa mas'uuliyiinta kale ee la midka ah ee u dhashay gobolka Sool ama gobolka ha ahaadaan ama kuwa caasimadda jooga inay iyaguna saas oo kale u garab istaagaan ciyaartooyda xulka gobolka Sool. sanad walba ciyaaraha gobolada markaan tagno waxaan la kulannaa gobollo aad loo garab taagan yahay. marka waa dhiirigelinta ciyaartooyda la dhiirigelinayo. Cabdicasiis Xuseen Tarawale dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda iyo sidoo kale xulka gobolka Sool oo ah iyagu dadka maanta lagu maamusay xafladda quruxda badan loona qabtay. sidoo kale waxaan salaamayaa xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhammaan marti sharafta kale ee joogta xafladda. runtii xafladani maanta waa xaflad weyn. waxaynu ku soo dhaweynaynaa ama ku dhiirigelinaynaa xulkeena gobolka Sool. aynu ognahay inay ka soo dabaasheen ciyaartooyo badan intii gobolada ciyaaraha ee Somaliland socdeen kaalin muhiim ah ka galay. kubaddu waa barcad iyo barmadow nasiibku marba xulkii markaa jooga ilaahay salaan kadib damaha markii ugu horeeyay maayarku uu dhiirigelin u sameeyay bahda ciyaaraha ilaa Hargeysa uu nala socday xaaladda uu ka warhayay sidii koobkii Sool Cup seerayada loo qabtay. maayarku ka qayb qaatay bahda dawladda hoose iyo golaha deegaankuna way ka qayb qaatay maayaradii hore. markastana way garab taagay bahda ciyaaraha. marka inta ka gudbo halka waxaan uga mahadcelinayaa marka koowaad maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Tarawale oo munaasabadan ku sharfay
xulka muxuu ahaa gobolka Sool way soo raagtay saan filayo anigu fikir ahaanteeda laakiin wali muxuu ahaa way fiican tahay in la sharfo waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa xulka gobolka Sool ee ugu horeeyay wasaaradda ciyaaraha isboortiga iyo balaayirintii kubadda ciyaaraysay guushii ay soo hooyeen level kasta ay haato iyo akhlaaqdii iyo sidii fiicnaay muxuu ahaa oo ama casuumadani khusaysaa xulka gobolka Sool loogu maamusay guuli ay ka soo hooyeen koobkii gobolada Soomaaliland guushu marbay guul darrada dhaantaa waxa weeye xafladan waxa la idinku qabtay way soo daahday oo waxa dhaawacmay oo in badan dhakhtar ku jiray oo maanta caafimaad qaba boortigii gobolka Sool Yusuf Lambasa oo dareenkiisu markii uu dhaawacmay anagoo halkaas aan arag maanta soo caafimaad qaba oo hoolka ku sugan yahay taasina waa guul labaad Ilaahay baa maanta iska leh Ahmed Weitman 5TV Las ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank